أخيرتها هو نجد دقيقة ساي برنامج شيء إذا عدى أفكار الصومالية هي لانتا سمدون سيدا أنو هريدين كوشيك نو تحنا نقدونه waxaanu caawa khadka telefoonka aanu si toos ah ugu wareysan doonaa maxamed cabdullaahi tiici oo ah madaxweynaha ximan iyo xeeb ee gobolka Cadaado kuwaasoo dagaalo ay ka dhaxmareen maalmihii la soo dhaafay gobolkaasi kuwaasoo dhimasho iyo dhaawacba u keenay ummad badan oo Soomaaliya iyagu ku nool gelinka ah waxaan salaankaas u gaarsiinayaa ummadda caalamka degan Scandinavian-ka su-aasheedii haddii aan ku bilaabo sida tan maxamed dagaalo baan ayaa ka dhacay gobolka aad ku sugan tahay kuwaasoo iska horimaadyo ay ku dhaxmareen sunna wa jamaaca sida la sheegay iyo groupkiina dhimasho iyo dhaawac ayaa dhacay sidee wax ku sugan yihiin iminka xaaladdu sidee tahay maxamed bismillah xaaladdu waa degan tahay halkaada dagaalkuna wuxuu ahaa mid maaragtay weerar lagu soo qaaday shacabka ximan iyo xeeb oo maaragtay ama maamulka ximan iyo xeeb isla markaasna wuxuu ahaa daraad subax qolo sheeganaysa mooryaan sheeganaysa hal sunna oo jamaaca ayay ahaayeen oo kusoo qaaday dagaal deegaanka ilaahay fadligiisna maaragtay waa loogu guuleystay oo hadda waa ka baxeen deegaankii waana degan yahay ilaa dhimashaduna waa 10 qof baa la sheegay dhaawacuna waa intaa waa xoogaa waa dhaamaa waa ilaa 5 madaxweyne tiicay waxa aan la soconaa ama aanu ku maqalnay warar aad bixisay adigu in aad ka maqnayd aad adigu ka baxday magaalada ay goormaad ku soo noqotay xageesa ku sugan tahay waqtigan xaadirka ah waxaan ku suganahay Cadaadaan ku suganahay waxaan ku soo noqday habeennimadii markii ahayd xilliyadii fiidkii waxaana loo baxay waxay ahayd magaalada khasaaro badan gaarin laakiin kusoo noqoshadii lagu soo noqday qasaaraha la minimaalay marka hadana alxamdulillah waa dhimashada iyo dhaawaca ka dhacay halkaasi mise la eg tahay ilaa maanta waqtigan aad dib u soo noqotay haddii aad dib ugu noqotay ciidamadii iyo dadkii iska horeemadu ay dhex mareen dhimashadu waxay u badnaayeen rayidkii ku dhacay maaragtay magaalada ay ku dileen iyo dad maaragtay culimo ah oo magaalada madaxa looga toogtay waxaana markii la calaadiyay dhimashadu gaaraysa 10 dhaawacuna ilaa 4-5 weeye inkastoo la qiyaasi karin oo dad la qaxay ay jiraan ayagoo dhaawaca dhici kartay nabaddu sidee bay tahay iminka xaaladda deganaanshaha magaaladu sidee bay ku sugan tahay maxamed jaal madaxweyne haddii aan ku weydiiyo xaaladdu waa degan tahay waa dadkuna waa ku soo noqnoqday guryahoodii waana wax maaragtay runtii laga yaabo laga yaqaado uma degan oo nabad degan ismaamushay in weerar lagu qaado runtii kulay ma garan karo meesha ka imanaysa ama waxa laga rabo haddii aan ku weydiiyo su-aashan waxaa jiray soo noqoshadaadii kadib ama sida aad ii sheegtay waxaanu maqalnay warar aan sugnayn oo sheegayay inaad adigu ugu baaqday ciidanka ama soo laabashadiinii aad sheegtay inaanan dhicin wax aarsi ama dagaalo aan la qaadin xagtaa ma nooga warrami kartaa mar walba anagu falsafadana waxay ku dhisan tahay inaanan dad la weerarin laakiin isdifaacu waa xaq taasaan aaminsanahay laakiin inaan dariska dadka ah weer lagu qaadin qasaarina aan la gaarsiin qofna aan waxa uu aaminsan yahay hadday noqon lahayd caqiidadiisa hadday noqon lahayd fikirkiisa aan loo dilin waa caqliga saliimka ku dhisan maamulka xamin